taniyo intuu talada dalka qabsaday madaxweynaha talada dalka haya hadda mudane muuse biixi cabdi waxa uu dardar xoogan iyo dadaal sidii loo dhammaystiri lahaa wadada ceergabo taasoo ah tooweyn marshuuca horumarineed ee laga wado dalka magaalada Garadag oo ka degmaahan kaga taala koonfurta galbeed ee gobolka iyo xarunta degmada ceergabo ayaa isku xidhka daamurka ka harsan 4 kiiloomitir oo kaliya wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka jidadka Soomaaliland ayaa markuu arkay baahida weyn loo qabo dhamaystirka wadada ceergabo wuxuu madaxa marshuuca u soo magacaabay injineer Maxamed Cabdi Qorjal injineer Buraale oo muddo kooban si xawliya u dhaqaajiyay wadadaas maamulka degmada Garadag iyo mas'uul sare ka socda xisbiga mucaaradka ee wadani iyo waliba jiif caaqil Cabdirjiid Ducaale cilmi oo ka marqaati kacay dardargelinta ay u socoto dhismaha wadada isku xidhaysa gobolka Sanaag iyo gobolka Togdheer anagoo joogna degmada Garadag waxa weeyaan wadadii ceergabo waa ogeydeen si fiican oo xawliya u soconaysaa way isqabsadeen imka ceergabo iyo Garadag 4 kiiloomitir baan daamur iyo jaygi lahayn intii kale daamurka jaygu isqabsaday marka la soo dhaafo Garadag ee Burcala soo qabto waxa weeyaan in yar 30 kiiloomitir oo jaygi yaala mooyay inta shaqo ka socota wadada ceergabo waxa weeyaan madaxweynihii noo dhagax dhigay ee ku geesiga hayay ku hiilay Axmed Maxamuud Siilaayo oo ducaynayna wasiirkiisa madaxtooyada xirsan oo ducaynayna kii ka dambeeyay Cali Marixaan oo ducaynayna wasiirkan dambe maxaan ku rahay wadooyinka iyo madaxweynaha dhamaantood oo ducaynayna nin kasta wax ka qabtay sharaf laga waday waan u ducaynayna wadadan oo mashruuc ugu weynaa ee Soomaaliland maxaan ku rahay laga fuliyay inta kulmid dalka haystay madaxweynihii Siilaayo ilaahay sanduuqa xasanaadka ugu daro waxa la xigay taabka galay iyo maskax iyo aqli wasiiradii la shaqeeyay ee ka soo shaqeeyay wadada ku xigay iyagana ilaahay sidaas leeka uga dhigo maareeyaha hadeer gacanta ku hayana ilaahay ha la qabto isagana waa u ducaynayna wax allaale wixii wax ku darayna ilaahay sanduuqa xasanaadka ugu daro wixii xaasidaya wadada ama urka ka nacib ama afka ka nacib waxaanu leenahay ilaahay baan u diray kuwaana iyadoo intaas jirto waddanka wixii saameeyay coronavirus loo sheegay lockdown-kii dhacay lagama reebin taa macnaheedu waxa weeye inay wadadu ay dawladdu daacad ka tahay waan ugu mahadnaqaynaa wasiirkii hore iyo kii hore iyo kii dambaba iyo mid kastoo ka shaqeeyay oo macluulinayna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xirsina waxaan leeyahay xirsow halkaa waxaan moodaa isku siyaasad bayno isku xisbi bayno horta marka hore laakiin inaan wixii sax ku sheegno xaq baan u leenahay wadadu si fiican bay socotaa يا أيها الذين آمنوا جاءكم بنبأ فاسق فتبينوا إليه marka dadka munaafiqiinta ay warka idin keenaas ka xaqiijiya quraan xaqiiqayn baa u soo gudbiyeen waad soo gudbisay waxa tiri wadadii ma socoto kuma wada socono taas inay saxnaabayno aynu wixii sax ee dawladdu wadada ku taageerno waa muhiim wixii khaldan dawladdu way saxayna aad iyo aad baan dhammaan salaamaya ummadda waxaan leeyahay wadadu way socotaa laba biyo hoostoos ka haraatiyeenay aan xiyeel aad iyo aad baan salaamay salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh runtii marka xaqiiqda la taabto waxa ku fiican wax kasta in xaqiiqdeeda lagu soo dhawaado wadada hadeer ceergabo iyo Garadag ama Fadhigaab iyo Garadag qofba sidoo u fahmo wax 2 kiiloomitir ka badan ka badnayn oo finalkii taagan baa daamurkii u haray intii kale waa laam 4 kiiloomitir annaga Garadag ahaan Sanaag galbeed baan u soo xignaa waxaan leenahay injineerada iyo wasiirka buurta cadaadeed baa noo hadhay inta buurta cadaadeed nagu harsantaan wax laga qabana hawl badan baa noo hadhay haddaanu garanayn tabaynaa inaanu ka warhayno oo aanu xoog ahaan la socono injineerka cusub maareeyaha cusub Buraale waa nin khubra deganaanshiyihiisa leh bulshada socodkeeda leh adeegkeeda leeyahay adeegida wadadeeda leh waxaan guud ahaan ugu mahadcelinaynaa RDI ayadoo dhan oo ugu horeeyo wasiirka wadooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland maareeyaha guud ee wadooyinka maareeyo ku xigeen laamiga ahayd qaybteeda Garadag sida laga soo sheekeeyay wadadu waxa weeye waxay ahayd qorshe qaranka xisbiga kulmiye ee 2010 markuu dalka qabsaday wixii ka dambeeyay waxa loo qorsheeyay inta laga soo bilaabo sidii wadada loo bilaabay wadadu markuu dhamay istaagnay ilaa iyo way socotaa ilaa markii la soo bilaabay ilaa iyo maanta wadadu waxa weeye maalin qura shaqadeedu maalin jimco noqoto fasax noqoto mooyaane shaqa kama istaagin
sida haddeerna waqtigan aynu arkayno xukuumadda cusub dardar cusub ayay gelisay iyadaana runtii intii ugu badneed qabatay marka laga reebo inta ma garanaysaa carakaawada laakiin intii ugu badneed ee laami la saaro xukuumadda cusub ayaa qabatay